صح adigu indhahaaga ma saartay oo ma aragtay Abuukar oo waraaqo lacag qabasho xisaabiyaha guutiin baraha xafiiskiina dhixiisa ku tiimbaraysanaya maxkamadda la wadaag arintaas waan arkay waxaan u dhaartay waa sax waan arkay caliyow wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada goormad ku biirtay oo u shaqeynaysay bilowgaagii hore bismillaahir rahmaanir rahiim wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada waxaan ku soo biiray 2016 xafiiskee ku biirtay oo ka tirsanayd xafiiskaasi xagee ku yaalay oo ku shaqeynay waxaan ku biiray waxda ruqsad bixinta shaqaalaha ajaanibta ee ku taalay xarunta elboorka aadan cadde xafiiskaas aad maxay ahayd shaqadaadu aad xafiiskaad ka qabanaysa shaqada xafiiska aan qabanay waxay ahayd dukumiinta aan qaban jiray oo ay soo codsadaan ajaanibta waayahay yaa xafiiskaas mas'uul ka ahaa ama maamule ka ahaa xafiiskaas waagaas aan joogay waxa madax qaybeed oo hay Cabdiraxmaan Cabdikariin waayahay ma taqaana Abuukar Maxamed Cali qof lagu magacaabo hadaa taqaano se muxuu yahay xagee ka shaqeynay Abuukar Maxamed Cali si fiican oo aqaana waayo muddo anaga 5 sano wada shaqeynaynay waxaana oo joogay waxda canshuuraha bariga ee wasaaradda maaliyadda waayahay xafiiskiina ma imaan jiray ama shaqo ma u soo doonan jiray maxay ahayd shaqadaas Abuukar shaqa naga dhaxaysay xafiiskooda anaga dadkan aan siino ama aan ka ogolaano ruqsada shaqada ayaan waxaan u diri jirnay xafiiska si ay mataqaana ay soo bixiyaan lacagaha hadda waa shaqo naga dhaxaysay asagana waa noo imaan jiray waayahay shaqada xafiis ahaan idinka dhaxaysay labada xafiiska uu joogay cashuuraha bariga aad sheegtay iyo xafiiskiina oo work permit-ka ah intaas horta maxkamadda ugu celi wada shaqeynta idinka dhaxaysay Abuukar Maxamed Cali waxa wada shaqeyn naga dhaxaysay waxay ahayd asaga wuxuu joogay xafiiska waxda canshuuraha bariga ee wasaaradda maaliyadda anigana waxaan joognay waxda ruqsad bixinta ee shaqaalaha ajaanibta markay ruqsad soo codsadaan koow anigana soo dhacayaan markaan dukumiintiyada ka qabana ka xaqiijino ayaan u diri jirnay say lacag u soo bixiyaan wasaaradda maaliyadda ee waxda canshuuraha bariga Abuukar xafiiskiina ma imaan jiray work permit-ka waa imaan jiray muxuu sababtu imaan jiray maxay ahayd waxyaalo imaan jiray maxaa kamid ahaa Abuukar Maxamed Cali xafiiskeen wuxuu imaan jiray badanaa markii xafiiskiisa oo busy am dad joogo oo noo imaan jiray waraaqo la imaan jiray oo rasiida ah tiimbaro meesha yaalo markaas wax ku dhufan jiray waana bixi jiray tiimbarahaas muxuu ahaa yaa iska lahaa maxay shaqadiisu ahayd tiimbarahaas waxa iska lahaa markaan fiiriyay Cabdiraxmaan Cabdikariin baa lahaa balse waxa waay wada shaqeyn ba ka dhaxaysay tiimbara mar walba markay wax ay yani waraaqada keeno ama rasiid la keeno meesha keeni jireen ku tiimbaraysan jireen tiimbarahaas muxuu ahaa maxkamadda bal la wadaag nooceeb u ahaa tiimbarahaas warqadda la saaraya maxay ahayd tiimbarahaas waxa ka qornay markii ku dhufato wasaaradda maaliyadda waayahay waxaan rabaa inaan ku weydiiyo waxaa tiri wada shaqeyn baa ka dhaxaysay iyo wada shaqeyntu ka dhaxaysay waxa wada shaqeyn ka dhaxaysay waa nilaado Cabdiraxmaan Cabdikariin iyo Abuukar Maxamed Cali iyo nilaado Cabdullaahi Weheliye waayahay waxaan ka rabaa su'aashayda ugu dambaysa aan ku weydiinayo waxay tahay Abuukar xafiis buu leeyahay safiyan maxay tahay marna ma kuu sheegay ama ma weydiisay adigu maadaama xafiiska aad joogto oo shaqaale ka ahayd sababta uu waraaqa uga tiimbareysanayo xafiiskiina والله حفيز وجوجي وانا متقنا شقنا وانا قاعد حيسي حفيز كان ما دام مدح قيباتك اي حلقات فيها كده حيو مدح قيباتك او ايمان جري بدنا تيم بران هو waxa waa laba waaye mid maaliyada waa jirta oo xaq u yaalay containerka iyo mid meeshan yaalay badana markii maaliyada ay dad u joogan ama BC ay tahay soo bixi jiray kana isticmaal jiray kana kaliis isticmaal jiray waxa isticmaal jiray Cabdiraxmaan Cabdikariin waa isticmaal jiray ninka la yiraahdo Wehelin waa isticmaal jiray waraaqaha ay tiimbareenayaan maxay ahaayeen waraaqada la tiimbareenay rasiid buu wahay oo koobi ah ku celi rasiid oo koobi waxa rasiid noocee ah rasiidka xisaabiyaha guud uu leeyahay waayo midka saxda ah markaan u dirno qofka ajaanibta oo lacagta soo shubto halkaas aan soo tiimbareenay waxda maaliyada oo waxda canshuuraha bariga ah mid kale ayaga jaabidku ku wataana meesha ku tiimbareen jireen xafiiskeena mar hataan waxa la jiraa tani oo banaanka iska bax maxkamadda hor taagantay Caliyow Cali Xasan صح waad dhaaratay safiyan su'aasheeda ugu dambaysa waxay tahay
تيم براها حفيز كايالي عبد الرحمن ولا ساد شيكتي adigu indhahaaga ma saartay oo ma aragtay abuukar oo waraaqo lacag qabasho xisaabiyaha guutiin baraha xafiiskiina dhixiisa ku tiin baraysanaya maxkamadda la wadaag arintaas waan arkay waxaan u dhaartayba waa sax waan arkay عليو سؤال شيء ضد ما يسوى ما سنتها محكمة وقت كان دورها فردقي هراء محكمة ده قرأنا ذا قيبة وحي كويدية نلله عبد الرحمن مس عبد الرحيم وحاتر نكاس ما جرانيو نكاس سؤال شيء لقى ويدية محوية هاي ما تقعنا شقدا ميل ما كسو قرايو سارد الشقدا يرماها بالشدة يحفيز قد كشقينا سير ما كتر سنة بل نينكا iyo xogtiisa iyo idinka hadii wax idin ka dhaxeeyaan sababta lagu weydiiyay anagu ma garanayo qareenada garanaya laakiin maxay ninkaas muxuu ahaa lagu weydiiyay tir ma garanayo waa ma hortani oo su'aasha Cabdiraxmaan ninka la Cabdiraxiin oo tamaandhow aniga si kala u qaatay ama si kala u fahmay inay abukaatayash weydiiyeen oo qaatay ninka Cabdiraxiin ma ka tirsan yahay wasaaradda shaqada in li weydiiyay taasan u qaatay aniga waxay yireen ma aqaanaanahay ila Cabdiraxiin waan aqaanaa waayo heerwaabiri asanahay guriga anaga aan ku soo guurayo hadda uu degan yahay waan aqaanankaas arrimaha bulshada xafiiska wuu akbar ma ka tirsanaa isagu shaqaale ka tirsan maya kama tirsanan wasaaradda kama tirsanan muxuu ka shaqeeyaa Cabdiraxiin wallahi al xaafad waxa ka shaqeeya ma garanayo ilaa aniga xaafadaas asoo naqaana waa ma santa maxkamadda sharafta leh waa ma santa